sheekhana marka hore soo dhawow. waad mahadsan tahay. allah ku barakeeyo. ustaadii waxaan jeclaan lahayn inaan su-aalaad ku weydiino. su-aalaha safiirka waa barnaamij khaasa culimada inta badan lagu wareysto oo aan culimada sheekadooda ku ogaano. sheekada sheekhana aan u bixinay, marka sheekhana waxaan jecel lahay inaan ogaano taariikh nololeedkaagii. bulshada soomaaliya inta badan way ku dhageysataa, way ku hadal haysaa, magacaaga way yaqaanaan, laakiin sheekha waxay jeclaan lahaayeen inay taariikhdiisa iyo usoo joogiisa waayo joogiisa inay bartaan ay jeclaan lahay. soo dhow ustaadi. waad mahadsantahay. waa dhowaha jazaaka allahu khayran. alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin, wsala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi wasalam. ikhwaanii fi llah, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. rag iyo dumarba dadka daawadayaasha ama dhegeystayaasha waxaan idin leeyahay ilaahay hayna wada barakeeyo adduunyada iyo aakhirana. allah inagu asturo sida wanaagsan saaciidadu ay ku jirtaan allah ina waafajiyo. intaa kadib sheekh weyn maihi sidaa uu walaalkay sheega, waxaanay arday, taas waa mid weeye oo ka cudur daaranaya. talabaada jirta, qofka bani aadamka ahi way ku yar adag tahay marka la yidhaahdo iska waran, oo waxa fiican haddii cidi waramaysa inay cid kale ka waranto. balse haddii dee aan soo yaro koobo, malaha waa hab loo dhaqmo casrigan aynu joogne. magacaygu sidaa maqasheen waa maxamed cumar dirir, hargeysaan ku noolahay. waxaan ka mid ahay uun wadaadada soomaalida ee dadka waxu yaro sheega. waxaynu sheegaynaa sawaab ilahay ha ka dhigo. waxa aan ku dhashay kililka shanaada etoobiya 1963. waxaa cilmiga sharciga ah ama culumtii qur-aankaba isoo baray intii hore aabbahay allah yarxamu sheekh cumar dirir, oo ka mid ahaa culimadii soomaalida ee tafsiirka iyo fiqiga akhriyi jiray iyo naxwada. muddada kolleyba aan wax baranayay dee way isku jirtaayo, qofku marka horena waxbuu baranayaa, marka dambe wax barayana isaga laftiisa wax baranaya. marka ilaa 10 sano ayay ahayd intii horean ku howlanaa inaan maaragtay cilmiga sharciga ah masaajidada ka qaato, marka la iska dhaafo madaariska iyo dugsiyada. in badan oo ka midana waalidkaan xokayn u ahaa ama aan ka ag dhowaa. markii dambe aan wax bilaabayna dee dhinacna barashaan kaga jiray oo anigii baa wax kororsanayay, dhinacna dadkan wixii ilaahay ii sahlo u kordhinayay. cilmigayguna xalqadaha masaajidkuu badnaa iyo culimada soomaalida iyo dee carabtabale inaan wax ka qaato. markii dambena qaybihii dambe aniga waxaan isku dayay anigoo dhinac wax ka baranaya inaan gelina wax barto, gelina wixii horeen soo akhristay aan dadka usii faa'iideeyo. oo kolley alcilmu yazku bilinfaaq baa la idhaha. cilmigu waxa uu ku kordhaa bixinta. markaa sida berigii hore caadiga ahayd waxay ahayd intoonu culumta soo akhrisanay inaanu haddana da-yarta naga yaryar usii akhrino si uu cilmigu wuxuu ku sugnaabaa la alcilmu yahbutu bitadriisi wata'liif. in la alifo iyo in la akhriyo ayuu ku sugnaa. markaa taa akhrinta ayaan isticmaali jiray, oo anigoo dadkii culimadii kasoo akhristay baan haddana dadka usii akhriyi jiray. marka labadu way wada socdeen baan odhan karaa, laakiin muddadaa hore aan u sheegay ayaa ay u badnayd intii aan maaragtay ku dhex jiray waxbarashada. waayahay ustaadii, qeybtii hore haddaan ku noqdo, sheekh dirir waa naqaanaa. bulshada soomaaliyed waxay jeclaan lahay inay ka bartaan caruurtiisa iyo qoysaskiisa. waa imisa? waa xaasasku waa 2, caruurtu waa 17. aniga iga soo jeeda 12na awow baanu ahay. dad sodomeeye meelahaasa baan haatan ka mas-uulahay, oo nin yar ballaadhan baa noqday. allah inagu asturee. waaya jasaaka allahu khayran. allah ku barakeeyo ustaadii, waa kaaga mahad celinaynaa. markaad cilmiga baranaysay ama aada ku jirtay waxbarashada ama aada ku jirta dadka inay waxbartid, waxaa kusoo maraya waxyaaba badan oo la yaab leh. markaad adduunka maraysa sidoo kaleeto ama noloshaado idil waxyaaba farxad leh kusoo maray. marka maxaa kugu farxad badnaa, maxaase kugu yaab badnaa? soo dhow ustaad. ta hore wanaagga aan horreysiiya ee dee qofku
waxa uu ku farxayaa marka u horeysaba nicmadu ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala ee faraha badan kala duwan ee mid diineed iyo mid dunyada leh iyo mid caafimaadba leh iyo inagoo waddankeenii joogna iyo cilmiga aynu ku mashquulsan nahay ama ilaahay inuu ina waafajiyey dhaxalkii nebiyada inaynu dadka wax uga sheegno oo inagu had iyo jeer gaaladu marka la ydhaa maxaa kugu farxad badnaa ama kugu naxdin badnaa wax yar oo hal mara ayuunbay sheegaan, laakiin waxay noogu farxad badan inaynu dhaxalkii nebiyada ku howlanahay oo aynu ku dhex jirno. taasa anigu aanu arkayaa farxadda weyn. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inaga aqbalo. kolley waxyaabaha dee naxdinta leh adduunku wuu iska badan yahay, waxa kaa naxiyaa oo waxa ugu naxdin badan uun dee waxa inaga soo gaadhaya ummadeenna burburaysa iyada oo sharaf leh haddana kaca kufaysa, ama dagaaladii mar walba soo noqnoqonaye dadka iyo dalku ay ku burburayeen qaxoonti lahaa ee dhimasho lahaa, oo anigu aanan ahayn runtii dadkii ka maqnaaye waxaan ahaa dadkii waddanka joogay oo dabedaha waxaan u tegi jiray uun inaan dacwad iyo muxaadaraad iyo shirar tago, laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii dalka dhex taagnaa intii wax ka dhacayeenba, dadka dhibaataysan arkayay, dagaalada sokeeye arkayay, musaalaxaadka iyo heshiisyada ku jiray. taasaa dee wax badan oo kaa naxiyaa ay runtii ku badnaayeen, laakiin waxaa shaksiga ahi wax macno buran ma sii lahae dhibaatooyinkaa caamka ah ee dalkeenna iyo dadkeenna haystay ee aan ag joogeen ka ag dhawaaye aanan ka maqnayn ayaa igu naxdin badnaa. waa mahadsantaha sheekhana, allah ku barakeeyo. maadaama aada reero badan leedahay, caruur badanna aada leedahay, waxaa la isweydiin karaa sheekh maxamed cumar dirir muxuu jacaylka ka aaminsan yahay? soo dhawow. waa su-aalihii dhalinyarada malaa taasi dee kol haddii heerkaa lasoo gaadho waxaynu ku jawaabi lahayn uun jawaabtu nebigu bixiyey sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yihi xubiba ilaya min dunyaakum, adduunyadiina waxaa aan ka jecelahay dumarka oo uga jeeda xaasaskiisa iyo udgoonka buuri. marka dee jacaylkeennu waa ka ehelkeenna ee ooryaheena iyo ubadkeenna. marka laga jacaylka dee dabiiciga ama maxaba shafqiya washawqiya, maxabada ehelka iyo aqaaribta loo hayo kuwaasumaynu jecel lahay. maxabada kale kasii weynina waxa weeye ta aynu u qabno ilaahay, rasuulka iyo diinta, taasaana inoo horeysa. tan kale dabiiciga ah ee caadigaana dee ehelkeenna inoo xalaasha ah iyo ubadkeenna inoo haynaa insha allah. waayo ustaadii allah ku barakeeyo. maadaama aada tiri jacaylka waa wax jira oo aada aqoonsatay inuu jiro, gurigii nabi maxamed salawaatu wasalaamu caleyh uu ku taagnaa, wuxuu ku taagnaana ay jacayl ahayd. sheekh dirir, jacayl ma ku dhacay weli? dee waxaan filayaa qofka marka uu howlahaasoo kale u dhaqaaqayo laydha daartaa la yidhaahdaa jacayl. abateedka ninku inuu xaas guursado abateedka u gala ama rabitaanka ayaa jacaylka la ydhaha. iyo ruuxa dumarkii markay nin guursanayso dee iska qaadan mayso une, ila qofkuba had iyo jeer markuu dhar iibsanayo wuu jeclaadaa, markuu qof bani aadama la xidhiidhayana wuu jeclaanaya. waxa labada qof isu keenaana waa inay is afkartaan, raqbad iyo abateed iyo jacaylna uu dhex maro. taasaa dee dabcan isu keenaysa. fankixuu maa daaba lakum buu ilaahay yidhi. fankixuu maa daaba lakum min annisaa, waxay culimadu ku macneeyaan waxaa guursataan maa daaba lakum min annisaa, dumarka wixii idiin xalaalana waa lagu fasiraa, aada jeclaataanna waa lagu fasiraaba. marka dabcan waa wax jira wey.